taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliland General Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle oo booqasho shaqo ku jooga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ayaa saaka kormeer indhayn ah ku maray xarumaha booliiska ee degmada Ceergaabo isagoo sidoo kalena taliyuhu kulamo la yeeshay saraakiisha ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag gaashaanle Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud Casayr halkan maanta waxaan ugu yimid taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska oo booqasho shaqo u yimid iyo kormeer si loo dardar-geliyo hawlaha booliiska aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsanahay taliyaha booqashadiisa kulley wixii hawlo ah ee waanu kala qaadan doonaa waxna horaan u kala qaadanay taliye ku soo dhawow taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliland General Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa iftiimiyay ujeedada socdaalkiisan uu ku joogo magaalada Ceergaabo isagoo sidoo kalena Master Fooxle socdaalkiisan ku sheegay oo kuurgelida habsami u socodka xaaladda ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag annaga ujeedada socdaalkaygu wax weeyaan mid caadi ah oo shaqo caadi ah oo routine kamid ah waxaan u nimeynaa inaan ku galno habsamida ay u socoto shaqada booliiska halkan wixii ka dhimanay inaan u eegno sida ay ugu xiran yihiin bulshadoodana aan u eegno wixii ka dhiman ama ka qaloocan aan u toosino ayaan halkan u nimi runtiina shirkii aan galay waan isku wada afgalno wax waa wixii waajibaadahana waa isbarnay waa mahadsantihiin Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergaabo.